asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa salaamantiin saaxiibeel dhammaantiina meel kastoo aad joogtaan soo dhowaada mar kale. aniga ayaa dib u soo laabtay. waxaan qaadanaynaa possessive determinants, tilmaamayaasha lahaanshaha ah. wuxuu leeyahay the words ereyada my, your, his, her, its, our, there are called. kuwan oo dhan waxaa la yidhaahdaa possessive determinants ayaa lahaa, ama magaca kale loo yaqaanaya wuxuu yahay possessive adjectives. use isticmaal these words ereyadani before nouns, magacyada ka hor isticmaal, to say si ay u tilmaamaan ama ay u sheegaan who something belongs to, qofka shayga ama wax iska leh. I lent Margaret waxaan deemiyey amaan amaahiyey ama tabal ahaan u siiyey my guitar, gitaarkeega. Is this your house? kani gurigaaga miya? marka lahaanshaha waad u jeeda bold ayaa la geliyey ama far madow ayaa lagu qoray. Robertiow, you handwriting, far qoraalkaaga ama qoraalkaaga gacanta is difficult to read, way adag tahay in la aqriyo, waad far xun tahay laga wada. Michael is showing, waxa uu tusayaa his tortoise diinkiisa to his friend, saaxiibadiisa. My sister walaasheeda lost her way in the city, wadadii magaalada ka dhuntay. The lion is chasing its prey, libaaxa waxa uu bursanaya maaragtay ugaarti ama waxa uu dilayay oo cunayay. The dentist asked his patient to open her mouth. dhakhtarka ilkaha ayaa waxaa loo yaqaana dentist, waxa uu weydiiyey bukaankiisa in afkeeda ay kala furto. Here is a table to help you remember the possessive determinants. tablekani waxa uu baraya ama ku xasuusinaya possessive determinantska qaababka ay u shaqeeyaan markay singular yihiin iyo markay plural ay yihiin, iyadoo loo kala saarayo first person, second person iyo third person waxa loo yaqaano. inta ugu badanna waxa waay aad bay u fudud yihiin markii laga hadlayo maaragtay tablada noocan oo kale. markuu singular yahay my waaye waxayga, hadday bataan waa awa waa waxayna moogtahay. your waxaaga, your wixiina. his wixiisa, their waxooda. her waxeeda, their ayada iyo mid kale laisku daray waxooda. it shayga wixiisa hadday bataan waa their. simply. exercise 1. exercise-kana waxa uu leeyahay fill in the blanks with a, an or the. ku buuxi meelaha bannaan, a ku buuxi, an ku buuxi ama the ku buuxi. malaha exercise-kana wuxuu ka turjumayaa cashar horaantii aan soo qaadanay maaragtay uu ahaa determinants ahaa. casharkaas ayuu u taagan yahay. meeshii marka vowel sound leh waxaan gelinaynaa an. meeshii consonant sound leh ayaan gelinaynaa ama a. meeshii oo definite ah ama wax la wada yaqaano ama adduunka bahalka aan the ayaan gelinaynaa. tusaale halka waa owl, an owl. rocket, a rocket. a brown, an a brown. sun, the sun. qoraxda moogtahay waa very definite way. beach, a beach. computer, a computer. moon, the moon. Missouri river, webigan marka webiyada iyo buuraha iyo the ayay qaatan. the Missouri river. mango, a mango. animal, an animal. eagle ama eagle, an eagle. baby, a baby. aaday u fududyihiin. halka soo socotana waxaa la gelin doonaa a iyo an iyo the ayaa la gelin doonaa. marka adigoo kan ka tusaale qaadanayo waxaan ku rajeynayaa intaad boos garaysato inaad ka shaqeyso exercise-kan hadduu alla idmo. waxaan u gudbaynaa qaybta labaad oo iyadana exercise uu ku qoran yahay ku buuxi meelaha bannaan, demonstrative adjectives ku buuxi ayuu ku leeyahay. maaragtay tilmaamayaasha maaragtay oo ama sifooyinka wax tilmaama halka ku buuxi uu ku leeyahay. dabcan demonstrative adjective casharan kasoo sameeyey waan soo qaadanay. dhammaan exercisada kama wada shaqeyn karo oo time uma helayo, way badan yihiin. dib uu noqo oo kasoo shaqeeya insha allah. halka kale waxa ku qoran
The underlined word is demonstrative adjectives or demonstrative pronouns. Write DA for demonstrative adjectives or DP for demonstrative pronouns in the blanks. wuxuu ku leeyahay kuwa hoos laga xariiqay haddii ay yihiin demonstrative adjectives DA ayaan ku qoraynaa, haddii ay yihiin kuwa hoos laga xariiqayna demonstrative pronouns DP ayaan ku qoraynaa. Simply midkan this hadduu demonstrative adjective aa kusoo qaadatay ama demonstrative pronoun haddaa kusoo qaadatay meeshan aa ku qoraysaa, then exercise wuu kaaga shaqaysanya insha allah. Simply aadna u fudud yahay. Exercise 5 waxaa ku qoran isagana choose the correct possessive adjectives from the boxes to fill in the blanks. Possessive adjectiveska ama possessive determinantska oo hadda dhow aan soo qaadanay ama casharkan bilaawiisa aan soo qaadanay ayaa halkan loogu shaqeynaya. aad iyo aadna waa u fudud yahay. marka wuxuu leeyahay kan waa my iyo it iyo his iyo our iyo your iyo their iyo her oo 7 pronouns lahaanshahoodii waay. my oo I pronounkeeda ah ama lahaansheeda ah, aan dhahay it oo it ah, his oo he ah, our oo we ah, your oo you ah, their oo they ah iyo her oo she ah ayaa halkan u isticmaali doona. So marka si fudud waxa ku fahmi kartaa subjectiga ayaa waxa uu noqonaya ama ayaa subjectiga jumlada sameeyaha jumlada ayaa lahaanshiisa meesha banaan u imaanaya. haddii sameeyaha uu yahay xayawaan yahay inta idaan u baahan tahay, haddii sameeyaha you oo yahay oo kale yura inta u baahan tahay. Simply is this Jane's dog? kani Jane eygeedi miya? marka yes sir, that is her dog. Jane eygeedi waa her way meeshan. The dog ega it is chasing its own tail way. marka eyga isaga isku laabmay oo sayntiisa ayuu maaragtay oo la wareegaya oo bursanaya. marka idisa galayso meeshani maadaama dog meesha uu yaalo. bettero waxaan soo sheegay magacyadu haddii ay qaataan comma hadday qaataan waxay ka dhigan tahay magacaasi isaga ayaa lala hadlaya isla markaasi. okay, so marka bettero is your father at home? aabahaga guriga ma jooga? Radi qofka la yiraahdo showing waxa uu tusayaa his aa leedahay meeshan. stamps to Ali ayuu tusayaa stambooyinkiisa ama maaragtay timbaradiisa waxa uu tusayaa Ali. I am going to waxaan u socdaa markaasi meeshan waa my aunt's house guriga eedaday this evening fiidnimadani. We always keep our class clean. mar waliba fasalkeena ayaan nadaafadiisa ku dadaalna. so just halka we ayaan ku heystaa, halka wayna awarkeena, halkana ayaan ku heystaa, halka ayaan keenaya. waa iska fududahay. children caruurey marka ma ujeedaa waa ayaga lala hadlaya. have you all finished? dhammaantiin ma dhamayseen your homework leeligiina. the children caruurta are proud of waxay ku faanayaan markaasi yeah their schoolkooda. waxaan kusoo gebagabeynayaa exerciseka ugu dambeeyo kaasoo ah maaragtay choose the correct interrogative adjectives from the box to fill in the blanks. adjectiveka oo interrogative adjective waxaa la sifooyinka su-aasha sameeya ayaa lahaa ama adjectiveyada su-aasha abuura ayaa la yiraahdaa. waana saddexa meesha ku qoran waa what iyo which iyo whose. what af soomaaligeed wuxuu noqonayaa maxaa, which waxa uu noqonayaa kee, whosena waa lahaansho yaa iska leh ayay u dhigan tahay. baleeg iyaguna sida isugu imaaneen what kind of animal is that ayaa leedahay. xayawaankaas waa xayawaan noocee. okay, which waxaan u isticmaalaynaa wixii person aan ahayn, qof waxaanan ahayn which waan u isticmaalana, laakiin dadku maaragtay which looma isticmaali karo, which xayawaanada loo isticmaalaya. okay, so the bosska maaragtay oo which oo kale who iyo whoma loo isticmaali karaa si kale markaan u dhigo. marka which runner is the winner? guuleystaha waa ka, orodyahanka oo guuleystay waa ka. de waxa ordaa dadii waxay yihiin lama oga mogta. okay, what is the matter? oraarinku muxuu yahay? whose desk is this? miiskan yaa iska leh. whose phone is ringing? waa dhihi kartaa you telefoonkiisa dhacaya, iyo which phone is ringing? telefoonka dhacaya waa dhihi kartaa. what is your name? magacaa. okay, waa dhihi kartaa. which twin is taller? mataanaha kee dheer? de mataanaha waxa dad inay lama kala yaqaan moogta. which hand is holding the pebble? gacanta hoosta ka hayso ama hayso pebbleka oo nooc ka mid a dhagxaanta waa tee. aad iyo aad ayaad u mahadsantiin dhammaantiina. waxaan halkan kusoo gebagabeynaya casharkeeni. intaan kulmi doono casharkan lamid ah waxaan idinkaga tegayaa
sidaasyo nabadgelyo.